السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دوادا برنامج قارة وأن واحد لينو أرمها قادكا سندي قدام بيي أي قادكا سامين بانكوها يقود أهان بالشدة قادكو ونوع كميتا جيدها اللو يخانو كاثا إدليس فاسك وجيد قابن وعليما عقارن له ونقضى جيد وين عليما أردن كي عربيدا جيد قادكا يالو تقسيما إن لغا هلو سامين فرفرعنان يمرغان دادك غاركيس cunida qaadku waa wax caadi ah oo waqti la isaga dhaafiyo waxay ku raaxaystaan inay si halaasi ah waqti ula qaataan saaxiibadood marka ay cunayaan qaadka hase yeeshee isticmaalku qaadku wuxuu dadka qaarkiis u keeni karaa dhibaatooyin sida darooyin kale isticmaalka xad dhaafka ah ee qaadka waxay qofka u keeni kartaa dhibaatooyin xagga caafimaad iyo latnaanta iyo sidoo kale saameynta ay ku leedahay dadka kale ee la nool sida qoyska qaadku wuxuu qofka ka dhigaa mid feejigan oo firfircoon hase yeeshee wuxuu kaloo keeni karaa dhibaatooyin badan oo caafimaad iyo hurdo la'aan iyo sidoo kale dareenka maskaxda oo kacsan saameynta jireed ee qaadku waa daroogo marqaan kiciyo ah taa micnaheedu waa in qaadku marqaan geliyo in badan oo shaqooyinka jidhkeena qabto isticmaalku qaadku wuxuu kordhiyaa heerka garaaca wadnaha heerka neefsiga heerkulka jidhka iyo cadaadiska dhiigga wuxuuna qofka ka dhigaa mid feejigan qofka cuna qaadku wuxuu kaloo noqon karaa mid kacsan oo tabartiisu korodho hadal badan wuxuuna lumiyaa rabitaanka cunida guud ahaan dadka waxay bilaabaan inay dareemaan saameynta qaadka 20 daqiiqo kadib cunidiisa ayadoo saameynta ugu weyn la dareemo 3 saac cunida qaadka kadib saameynta aan la jecleen ama aan la doonayn ee ka dhalata cunida qaadka waxa kamid ah dareenka oo kacsan asaasiyad dareen caro iyo qaraxa rabshadaha dareenka buuqsanaanta xanaaqa iyo kacsanaanta saameynta aan la doonayn ee jireed iyo caafimaad ee la xiriira cunida qaadka ee joogtada waxa kamid ah adkaanta seexashada ciniinimada awooddarada galmada qarowga dhibaatooyinka dheefmareenka caloosha iyo mindhicirka sida calool fadhiga qowrarka afka iyo qaybaha kale ee gudaha afka kansarka afka miisaanka cunuga dhasha oo yaraada haddii hooyada ay qiisho caanaha naaska oo yaraada ee hooyooyinka cuna qaadka isticmaalka qaadka ee waqtiga muddada dheer ama haddii aad u badan wuxuu kaloo keenaa dhibaatooyinka niyad jabka walaaca iyo xanaaq dhawida waxaa kaloo mararka qaarkood ay keeni kartaa in qofka ay ku dhacdo dhibaatooyin oo aad ku daran saameynta bulshadeed ee qaadku isticmaalka qaadku wuxuu kaloo keeni karaa dhibaatooyin bulshadeed gaar ahaan markii si joogto ah loo isticmaalo ama haddii badan laga isticmaalo haddii ay qofku ka haysato dhibaato xagga isticmaalka qaadku waxay kaloo saameyn kartaa qoyskiisa saaxiibadiisa shaqada iyo dhaqaalahaba isticmaalku qaadku wuxuu dhalin karaa dhibaatooyin qoyseed iyo kuwa dhaqaneedba gaar ahaan marka cunida qaadku ay qaadato muddo dheer sidaasna uu qofkii waqti badan ugu maqnaado xaaska dhibaatada waxaa sii humeyn karaa haddii uu qofkii marka uu yimaado guriga uu iska seexdo halkii uu waqti la qaadan lahaa xaaskiisa ama ay caro iyo xanaaq saaran yihiin kadib barjayntii qaadka xubnaha qoysku waxay ka xumaan karaan markii uusan qofku garwaaqsanayn dhibaatooyinka cunidiisa qaadku ay keenayso isticmaalka qaadku waxay kaloo keeni kartaa dhibaatooyin xagga shaqada iyo iskuulka dadka cuna qaadka waxaa laga yaabaa inaysan sidii laga rabay u shaqayn ama wax u baran sababtoo ah way daalan yihiin waana kacsan yihiin tan waxay kaloo keenaysaa xaaladaha shaqada ammaanka lahayn gaar ahaan wadida baabuurta ama ku shaqaynta mashiinada culus dadka qaadka cuna waxay qaataan fasax jiro oo badan waxay la xanuunsan yihiin dhibaatooyinka caafimaad qaarkood oo la xiriira isticmaalka qaadka dhibaatooyin dhaqaale ayaa dhaca haddii qarashka lagu gato qaadka ay tahay inaysan soo harin wax lacaga oo ku filan in lagu soo gato cunto ama lagu bixiyo biilasha tanna waxay u keentaa walwal dheeraad ah qoysku waalidiinta cuna qaadka waa inay ka fiirsadaan dhaqanka ay u horseedayaan caruurta waxay ka bartaan in badan oo dhaqankooda iyo dabeecadahooda ah eegidda iyo dhageysiga dadka muhiimku ah noloshooda haddii uu ilmuhu arko xubno qoyskooda ka mid ah oo qaad cunaya waxaa dhacdaa inay ayaguna isku dayaan sidaas oo kale su-aasha meesha taalla ayaa ah qofka ma noqon karaa mid u barta qaadka weli lama ogaan inay qofku ku walfaqaato cunista qaadka si kastaba ha ahaatee dadka aadka u cuna qaadka muqayiliinta ah waxay dareemaan astaamaha
u barashada iyo la qabsashada haddii ay joojiyaan qaylaada. haddii uu qofku caadaysto ku shaqaynta qaadka wuxuu noqon karaa jidh ahaan mid ku xiran qaadka. dadka aadka muqayiliinta u ah waxaa la arkay inay la kulmaan astaamaha u barashada sida daal xaddhaaf ah iyo tabar la-aan, ku adkaanshaha inay qabsadaan howl maalmeedkooda iyo xoogaa gariir ah dhowr maalmood kadib marka ay joojiyaan cunida qaadka. astaamahaas way dhici karaan sababtoo ah jidhku wuxuu u bartay inuu helo qaad, haddana waa inuu u bartaa inuu shaqeeyo la-aantiisa. haddii uu qofka dareemo inuu u baahan yahay inuu cuno qaadka si uu ula qabsado noloshiisa una noqdo mid faraxsan, waxaa laga yaabaa inuu nafsad ahaan noqdo mid ku xiran qaadka. qofkaas wuxuu dareemi karaa inuusan la qabsan karin xaaladaha qaarkood sida kulanada bulshada ama wareega dheer ee shaqada. haddii uusan cunin qaadka, joojinta cunida qaadka waxay u keeni kartaa qofkaas nafsad ahaanta ku xiran qaadka inuu dareemo walaac iyo dhirfsanaan. wuxuu kaloo qofku dareemi karaa go'doon, gaar ahaan haddii uu qofku u bartay inuu saaxiibadiisa kala qayb galo fadhiyada barjeynta cunida qaadka. yaraynta waxyeelooyinka la xiriira cunida qaadka. tilmaamahan soo socda waxaa noqon karaan kuwo gacan ka geysta xaaladaha muqayiliinta. haddii aad tahay qof si joogto ah u cuna qaadka, isku day inaad yarayso xaddiga aad ka qaadanayso iyadoo nasashooyin macquul ah u dhaxeeyaan fadhiyada. iska ilaali cabitaanada ay ku jiraan kafeynka sida kokola, koofeega, biyo ku bedelo cabitaanadaas. iska ilaali khamriga ama daroogooyinka kale ka hor ama kadib fadhiga cunida qaadka. isku darida daroogooyinka waxay noqon kartaa mid khatar ah. haddii aad sigaar cabto, iska yaree tirada sigaarka aad cabayso intaad qaadka cunayso. iska ilaali fadhiyada ciriiriga ah, waxaadna furtaa dariishadaha si ay hawada freshka ah u soo gasho. waxaad cuntaa faruud badan, qudaarta iyo cuntooyinka kale ee caafimaadka leh. waxaadna hubisaa inaad wax cunto ka hor iyo kadibba fadhiyada cunida qaadka. isku day inaad iska ilaaliso cunida qaadka habeenkii wakhtiga dambe, hana qaadan kaniiniyada hurdada in dhakhtarka uu kuu qoro ma ahe. iska ilaali inaad muddo dheer qaadka ku taqsiinto cankaaga maadaama ay tani kordhin karto khatartaada inuu afka kaaga dhaco infekshanka ama isbeddel ku dhaco unugyada canka, taasoo kansarku ku keeni karto. haddii aad uur leedahay, iska ilaali inaad cunto qaadka maadaama ay tani u keeni karto khatarta caafimaad ilmahaaga uurka ku jira. sida ugu ammaanka badan oo laysaga ilaaliyo dhibaatooyinka cunida qaadka waa in la iska daayo cunidiisa. waxaa ka mid ah astaamaha lagu garto ruuxa qayla ama cuna qaadka: ka fogaansha uu ka fogaado dadka ama bulshada, rafaad iyo isdaryeelid la-aan gaar ahaan xagga nadaafadda, wahsi ama hamaansi joogta, weji kaduud, dhidid iyo farogariir, cuntiyari, dhuubnaan iyo calool istaag, xanaaq degdeg ah, aqoon raadin la-aan iyo shaqo goyngoyn. haddaba ayadoo saas ay tahay ayaa dalal jiro oo ay u aqoonsadeen qaadka inuu maandooriye yahay, iskuna dayay inay joojiyaan. dalalkaas ayaa waxaa ka mid yihiin Soomaaliya, Jabuuti, Kenya, Yaman, Masar, Sacuudiga, Itoobiya, Suudaan. barnaamijkeeni aanu ku eegaynay arrimaha qaadka intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa. haddaad ku cusub tahay channelka Rajada iyo Maanta, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto, sidoo kale gambalelka aad furato si aad noola socoto oona u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaalka